maalintii maalmaha ka tilmaaneed iyo kulamadii sida gaarka ah isha loogu hayay macallimiinta shaday kuwa loo taliyey iyo kuwa loo taaglaayahay qaarkood may tabaabushaysan oo wayaga ayaa isqalay. Newcastle oo hadiyad u dirtay Arsenal, Man City ayayse hadiyadan iyo heeryadanba ka rideen. maalintii maalmaha ka tilmaaneed qoorweynta oo ilmadu ka socoto Tottenham Falatacione iyo Newcastle. Man City ayaa guuldarro kala kulantay Newcastle kulan ka tirsanaa Premier League oo si gaaran isha loogu hayay. kooxda Newcastle ayaa hadiyad qaali ah u dirtay kooxda Arsenal iyagoo ka joojiyay Man City guulihii xidhiidhka ahaa. goolasha kulankan ka dhacay garoonka St James Park oo ka mid ah garoomada caqabada ku ah kooxaha qoorweynta Premier League. waxa uu ku bilaabmay gool oo xidiga Harvey Barnes u dhaliyay Newcastle daqiiqadii 64aad kadib markii uu qaaday laad xoogan oo dhulka jiifa kaasi oo waqtigaasi uu yiri inankii aanu mari weynay gacmo ganjeelaha ahaa kubadihii muhiimka ah qaybtii horena gacmihiisa ganjeelka nagu jalaafeeyayow Dana Rumow noocan ma lagu baray. Ruben Dias ayaa ku guuleystay inuu barbareeyo ciyaarta isagoo u dhaliyay Man City daqiiqadii 68aad kadib markii uu si xoogan u toogtay kubadu difaaca ku guul daraystay inay ka saaraan aaga khatarta ka caagan, balse habeenadoodii muu ahayn kooxda Citizens. Barnes ayaa mar kale ku guuleystay inuu dhaliyo goolka guusha ee kooxda Magpies daqiiqadii 70aad. goolkaas oo yimid isagoo si fiican u dhamaystay kubad qalalaase ku ahayd gudaha xerada ganaaxa, markaana calaamka cas ayaa ka baxayay xerada. ciyaartoyda Man City ayaa isku dayay inay ugu yaraan helaan goolka barbaraha, balse dadaaladoodii guul kuma aysan gaadhin oo maalintani aqliyadii timuu ka daateen ee dhakadeedu dhalaalaysay may noqon mid filosoofka sidii looga bartay uu kulankani u go'aamiyo. waxaana ciyaartu ku dhamaatay guul adag oo Newcastle ka gaadhay kooxda City. guusha maanta kadib Newcastle waxay gaadheen 15 dhibcood oo ay kaga jiraan kaalinta 14aad ee kala sarreynta Premier League, halka Man City ay ku jirto kaalinta 3aad iyagoo leh 22 dhibcood. maalin dhibco dhiig loo daadiyo dheeldheel ku fasaxeen ayay ahayd. haddaba kulanka markaynu si gaar ah isu dul taagno waa City iyo Newcastle. kooxda City 17 shuud oo ay ku tuurtay goolka Newcastle 4 ayay ku aadisay kubadaysashadoodu sidii caadada ahayd waa 860, 517 baas oo ay sameeyeen 515 baas ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday. 13 tackle, 8 foul iyo 9 corner oo aanay natiijada 3 dhibcood ku gaadhin, halka Newcastle 9 shuud oo ay samaysay ay 5 goolka ku aadisay. kubadaysashadoodu waa 230, 265 baas oo ay kulanka sameeyeen 200 ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday. taakaladoodu waa 17 iyo sidoo kale fauliskooda 12, 5 corner oo ay 3 dhibcood la hoydeen ayaana ay heleen. xidiga mucjisada ahaa ee Harvey Barnes ee Man City labada u kala jaray sida direction of play-ga head mapka kaaga muuqata waxani ayuu ahaa waxa uu sameynayay oo waxa uu ahaa inaan ku galgashay qaybta garoonka kooxda City. 85 daqiiqo uu ciyaaray, 4 shoot ayuu ku ganay, 30 taabasho ayuu sameeyay, 2 gool baa Cabdow laga dhaliyay, 18 baas buu sameeyay, 2 loolan oo guuleystay ayuu isagana inankani la baxay. wax kale ayuu ahaa maalintu maalmaha way uga tilmaaneed. Citizens sorry waa laydinka joojiyey tareenkii manchadheerahana rag ciriqooda helay ayaa joojiyey oo yiri tanna ma lagu baray manchaqabadka noocani in laysu jiido. ila deg ayaana ka dhacday hortay dabaasha noocyadeeda baro oo markaa farsamo nagu dhaaf. manchadheerihii waa la isku maray maalintan maalmaha ka tilmaamnan. Pep qayla dhaantiisu iyo cabaadkiisu kaamarooyinka waa ay hareeyeen, waxba way ka duubi kari waayeen inamadii sawir qaadayaasha qowdhanka iyo weliba afya labadii daan inuu yeedhaa xalaal ayay u ahayd. sorry City ayaanu leenahay Tottenham Falatacione iyo Newcastle. maalintu sidoo kale uma fiicnayn kooxdii maalmahan liinbaxaysay. toddobaad kale oo Liverpool ay liinbaxayso oo harageeda lagu tukaday la yiri maryaha malaga calaashaday. Nottingham Forest ay waxay doonto samaysay 3 laqsiisay intay dhakadii islot salaaxday ayay 3 dhibcoodna
halkaasi la mareen eheya reer liin macaan waa la shiitay oo la cabbay maalintan maalmaha ka tilmaaman liverpool kulankan may mahadin jedaadoos iliyad rookhe ayaanu leenahay Nottingham ayaa guul cajiib oo u qalmeen 3 kaga adkaaday Liverpool kulan ka tirsanaa wareega 12aad ee Premier League Ingiriiska ciyaar ka dhacday qalcadii labada xiniyood ee kooxda Liverpool ay ooli jireen oo iminka noqotay la galay laga darsaday laga soo baxay laga qaatay 3 dhibcood eheya way leembaxayaan dhiigbax way dhaafeen xaalkoodu Nottingham ayaa hoggaanka qabatay daqiiqadii 33 oo la isku raagin kadib markii Dos Santos uu shabaqa soo taabtay qaybtii labaad bilowgeeda daqiiqadii 46 waxa goolka labaad u dhaliyay martida ciyaaryahan Nicolas Savona daqiiqadii 78 Nottingham ayaa 3 gool ka dhigtay ciyaarta waxaanay tiri reer liin macaan waad leen baxaysaane qabasho ma leeyihiin oo inaad tan wax ka samaysaan maalintiini maaha waxaana goolka saddexaad dhaliyay xidiga Morgan Gibbs White taasoo ciyaarta ka dhigtay mid aan dib loo soo celin karin raq tagtay iyo roob galbeed tagay midna lama soo celin karo Liverpool ayaa weli gacanta ku haysa 18 dhibcood taasoo hoos uga dhigtay kaalinta 11aad kadib guuldaradan Nottingham dhankooda waxay dhibcahooda uru gaarsiiyeen 12 kaas taasoo kor u qaaday kaalinta 16aad kulanka si gaar ah markaynu isu dul taagno 21 shoot oo Liverpool tuurtay oo aanay waxba ku keenin afar ayay ku aadisay kubadaysashadoodu waa 57% bilaa natiijo 617 baas oo ay sameeyeen 549 ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday maalintaad habaaran tahay waa noocan oo kale habaarkoodii mar kale ayaa update lagu sameeyay 15 tackle 11 foul iyo 8 corner oo aan xataa hal gool lagu keenin Nottingham 15 shoot ay kulanka tuurtay waa la ballaqnaa kulankan Nottingham waxay ku tusinaysaa kulankan inuu ahaa mid Liverpool ballaqnayd 15 shoot ay tuureen 7 ayay ku aadiyeen alambaqa 25% ayay ku badaysashadoodu ahayd oo ay 3 gool ku dhaliyeen 3 dhibcood ku qaateen xiniyihii Liverpool ay ku tuntunteen 211 baas oo 152 baas oo kaliya halkii loogu talagalay ku dhamaadeen war waxaan dhacayaa inaadeer waa xilligii loo oran jiray elelekheed miss Smith Moa waxani suurtagal maaha wareer Liverpool jaswi horta kama safa xaalkiinu siduu yahay miyaan garanayaaba daanugu 720 tackle dhuljiif erjiif iyo waliba cunaqabad wadnaqabad intaas xalaal bay u ahayd maadaama 3 dhibcood iyo 3 gool keeneen 8 foul 6 corner marka habeen Liverpool harageeda lagu tukaday maryaha laga calaashaday wixii dhacay ay dhaceen ayay ahayd waan leeyahay ahyaa suuray ya Liverpool wad leen baxaysaan wax kale idiima samayn karo wax kale oo aan idin qaban karaa ma jirto aan ahayn wad leen baxaysaane jeedadu siliyad rookhe waxaan idin ku dhacaya anigu waxba kama qaban kare marka reer Liverpool way qowdhameen ciyaarta ka bacdi horta aynu eegno xilligeedii 2024 iyo 25 Liverpool 30 dhibcood bay haysatay horyaalka cidi kulama tartamaynin oo si toos 23 ayaa ugu dhaweyd laakiin maanta 2025 iyo 26 Liverpool kaalinta 11aad iyo 18 dhibcood kulaalaysa iyagoo amankaagsan oo yaabsan oo dhabanada haysta Nottingham waa caqabad loo soo diray kooxda Liverpool horena sidan ayay ugu tumeen 2024 September 14keedii hal iyo ever ayayna ku baqtiyeen kooxdan caqabada ku ah 124 kulan oo ay gurigeeda kooxda Liverpool ku ciyaartay 5 kulan oo kaliya ayaa laga badiyay caqabada ugu badanna waa kooxda Nottingham Van Dijk irqiisa way heleen ka daba baxa daba dhiga ka adeegtag waxay doonaan ku sameeya albaabada way ballaqayaan Nottingham waa wax kalaba waa mucjiso waxay doonaan ayaana ay ka sameeyeen 14 September 2024 22 November 2025 tan dhacday anigu maan dhigin iyaga is dhigay reer Liverpool oo waxaan isugu wacan haddaba aynu eegno Van Dijk waa uu qowdhamay ciyaarta ka bacdi goolal fudud ayaa nagala dhaliyay
mar kale waxay naga dhaliyeen kubadaha istaaga isku dhacyada iyo dagaalka kubadda kuma fiicnayn waxaanu ciyaarnay si degdeg ah oo qalqal leh xaalad adag ayaanu ku jirnaa oo anagu maxaan idinku qaban karaynaa oo aan idinka celin karaynaa wuxuu sii raaciyay hadalkiisa kadib goolka waxa yimid cadaadis waxaan isku daynay inaan wax degdeg ah la imaano taasoo dhacda marka xaaladaha degdega la galo laakiin shaqo badan ayaa loo baahan yahay si aan u soo kabsano daafaca reer Holland ayaa tilmaamay mas'uuliyadda ciyaarta qof walbana waa inuu mas'uuliyad qaato ayuu yiri waa inaan aqbalnaa wixii dhacay oo aan ka shaqeyno inaan hagaajino guuldarrada Anfield waa mid aad u xanuun badan ugu dambeyn wuxuu yiri tartamayaasha ma xukumi karno laakiin taageerayaashu mar walba way nala joogeen oo maxay samayn karaan ma garoonkay kugula soo geli waan soo kaban doonaa laakiin taasi habeen kaliya ma dhici doonto oo sidan u baadu si balaqnaan faandaajow taageerayaashuna af iyo labadii daan ayay yeedheen ciyaarta ka bacdi oo iyaguna waxay qowdhamaan way ishayn kari waayeen oo qowdhamaada inay ku nafisaan ayay wax ka bideen ciyaartoyda Liverpool ayaa garoonka ka baxay iyagoo madaxa kor u haya kadib badhig liita balse taageerayaashu si gaar ah ayay ugu niyad jabeen difaaca dhexe Ibrahim Kanote kaas oo lagu bedelay Hugo Inteka qaybtii dambe taageerayaashu si degdeg ah ayay fikirkooda ugu soo bandhigeen baraha bulshada mid ka mid ah ayaana yiri Kanote wuxuu ka mid yahay difaacyada ugu liita horyaalka xilli ciyaareedkan ma jiraan difaacyo badan oo safka koowaad oo ka liita runtii qiimaha uu joogo mid kale ayaa ku daray Kanote wuxuu ahaa mid shaah wareersan qaybtii hore waxaan u baahannahay goohi inuu yimaado Janaayo kowdeeda hanaga tago wada hadallada qandaraaska Kanotena haddii sidan uu noqonayo heerkiisa adeero gacaliya nala dhaafa mid kale ayaa isaguna ku qowdhamay waa kii sii xumaa Lovren inta badan xilli ciyaareedkan runtan mid afraad ayaa yidhi Kanote waa in la fadhiisiyaa xilligan sababtoo ah kooxda ayuu halis ku yahay gool kastoo nalaga dhaliyo isaga ayuu ka yimaadaa oo nagu galbiya dhanka kale James Spence oo ka tirsan The Atlantic ayaa sheegay in Kanote u soo bandhigay waxqabad riyo xun ah qaybtii hore ee ciyaarta Kanote waxa uu si joogto ah loola xidhiidhinayay inuu wareegayo Real Madrid iyadoo qandaraaskiisa Liverpool u dhacayo June 2026 waxaana uu xaq u yeelan doonaa inuu heshiis hordhaca la galo Los Blancos marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee Janaayo haddii xaaladiisu sidan tahayna wallahi inaan xero digaag lagu hadlaynayn baan ku yiri kan waa galbiye weynba mise qalbigiisa talow aaday xagga iyo Real Madrid waynu eegi doonaa marka waxaan leeyahay reer Liverpool idinka arliga guys dhigay isna balaqay sidana isugu wacan Tottenham Falatacione ya Nottingham Forest kooxda Chelsea golin hore ayay xamaalatay maalintan maalmaha ka tilmaanada Sabtida Neto iyo Fernandes ayaana labada gool u hibeeyay booskeeda ayaana ay sii adkaysatay Burnley ayayna harageeda ku tukadeen waxaana yiraahdeen jawaabiirtu jugtii hore waanu ka soo reysanoo anaga imika dadka jilba jabina kooxda Barcelona habeen qurux badan ayay qaadatay oo habeenada uu uga duwanaa Lewandowski waa booqday mar kale shabaqa Torres isna waa ku shubay Lopez isna wuu ku shubay Torres mar kale ayuu ku ceeshaday habeen qurux badan ayuu ahaa Newcastle la daahfuray bay u ahayd oo ay dhoola cadeyntu xalaal u ahayd si ku meel gaara ayaanay hogaanka ugu sii raaxaysanayaan waa hadii Real ay isbalaqdana waa hadiyad gaara oo ay heleen xubintu waa kariskiya kala haadintii anigu waxaanahay Maxamed Tirike maalintan maalmaha ka tilmaanada Super Sundayna waxa la diiradda la saarayaa kulanka Derby London ee Arsenal iyo kooxda Tottenham cidii isbalaqda waxay u noqon doontaa iyaga dareygan isdhigay ee maxaa inooga kidhiisha la karsadaa halkanna la keenaa lagu karsadaa haragoodana lagu tukadaa anigu waxaanahay Maxamed Tirike midda xigta sida yaa maana Allah